madaxweyne maxamed siyaad barre waxa uu ka tegey dhaxal midaba kala duwan leh samaan iyo xumaanba waxaa lagu tilmaamaa inuu ahaa madaxweynihii wakhtigii uu talinayey uu dalku aad u dhismay ha ahaadeen adeegyo waxbarasho warshado waddooyin iyo mashaariic wax soo saaraba balse taarikhyahanadu waxay isku raaceen in madaxweyne maxamed siyaad barre uusan isku shuqlin inuu dalka u diyaariyo marxalad uu ku sii deganaado siyaasad iyo dhaqaale ahaanba isaga kadib waayo waxa uu dalka si silcis ah ku sii maamulayey 12 sano oo dheeraad ah laga bilaabo markii ay samaysmeen jabhadaha mucaaradka ee hubaysan haddaba madaxweyne maxamed siyaad barre nin caynkee ah ayuu ahaa waa su'aal xasaasi ah soomaaliduna ay maanta ku kala qaybsan tahay laakiin bal aan hor dhigo raggii la soo shaqeeyey iyo kuwii ka soo hor jeeday labadaba waxaan ugu horraysiinayaa nin ay muddo dheer soo wada shaqeeyeen dalkana ka soo qabtay jagooyinka wasiirka gaashaandhigga iyo ra'iisul wasaare waa maxamed cali samatar oo lagu tilmaamo inuu ahaa nin ay si aad ah isugu dhowaayeen madaxweyne maxamed siyaad barre maxamed siyaad barre waa la wada yaqaan shakhsi adag oo calool adeeg badan leh oo waxyaalaha qaar aanan u daciifin oo noocaas u ahaa laakiin haddana sida dadka qaar ay ka dhigayaan cruel muusan aheeno waxyaalo badan oo hadda loo dhoobayo oo dusha looga tuurayo ma uusan lahayn maxaa ka mid a waxaa ka mida mida crueltada aan ku leeyahayba oo yacni cadaawad iyo xirmaan iyo reer buu maagaa oo qabiil hebel buu rabaa ama dabcaa in la baabi'iyo iyo waxaasoo dhan waa iska sheeko ninka hadduu maamulka madax u yahay ma raadin karo dadku maamulayay ka mid ah in la baabi'iyo waxaas macquulna maaha musuq maasuq miyaa jiray musuq maasuq miyuu ahaa isaga ma malaynay maya ma ahayn arrimaha dhaqaalaha uu ka fogaa inuu maaragtay farageliyo dad fara badan baa waxay yidhaahdaan oo siyaasiyiinta hadda u badan iyo dadka hadda siyaasadda oo daraso waxay dhahaan wax kasta oo maanta Soomaaliya ka qaldan waxa ka mas'uulahayd xukuumadda Siyaad Barre jawaab khalada weey waana nin walba uu garan karaa taas inayan soconaynin dowladdii kacaanka hal isweydiiyo maxay qabatay intay gaartay awoodeeda maxaa dalka u qabsoomay intay xukunka haysay maxaa ka dhismay dalka dowladdaas kadibna maxaa soo baxay hal isweydiiyo marka xaqaa'iqa markaasa loo yimaado axmed sulaymaan cabdalla waxa uu isagu ku dooday in muddada dheer ee maxamed siyaad barre uu ku dheganaa xukunka ay ahayd waddan jacayl ee aysan ahayn xukun jacayl buugaagta iyo qoraalada la sameeyey xilligaa wixii ka dambeeyey iyo waxaa la yidhaha siyaad barre dictator buu ahaa 21 sano waddan ka taliyey xukun jacayl buu muddadaas uga talinayay Soomaaliya ma ahayn waddan jacayl buu uga talinayay waddan jacayl iyo uga talinayay maxaa kaloo iiga sheegi kartaa shakhsiyadiisii waxaan kaaga sheegi karaa shakhsiyadiisii nin naxariis badan buu ahaa oo ka ugu daran dadka ee isaga ka horjeesta ee la dagaalama ee doonay inuu dilo saamaxa haddana taas haddaad dib u raacdo dadku saamaxi jiray waad ka heli kartaa yaa ka mid ahaa dad walba cid walba madaxdaa ka mid ahayd madax badan oo madaxdayadii ka mid ahayd oo ka hor timi oo la dagaalantay oo xumaysay yaa ka mid ahayd qaar ma iga xus kartaa rag badan ma xusadeeyo ninna kuma sheegayo ku odhan maayo hebel ku odhan maaye adigu raac bal recordkiio raggii la xidhxidhay ee maxaan ku idhaha bal dib u raac waa cumar carte maxaan ku idhaha raggii kale la xidhnaa adigu aniga hay sheegin waxay soo garamaysid hay hor ordin adigu yani waxaad helaysaa sanad walba dadka jeelka ku jira badankooda waa la saamaxi jiray marka October iyo soo galaan ciidaha iyo waadagay Cusmaan Maxamed Jeelle waxa uu ka mid ahaa golihii sare ee kacaanka xilal wasiirnimada uu ka soo qabtay dawladdaasi waxaa kale oo ku jiray saraakiil jagooyin sare ka soo qabtay dawladda madaxweyne Maxamed Siyaad Barre oo 1982 xabsiga loo taxaabay
xubnaha kale ee lala xidhayna waxaa ka mid ahaa ismaaciil cali abokor, cumar carte qaalib, cumar xaaji masalle, maxamuud yuusuf weyrax, warsame cali faarax iyo maxamed aadan sheekh. waxaan weydiiyey cusmaan maxamed jaalle in maxamed siyaad barre uu mas-uul ka yahay wax kasta oo ka xumaaday soomaaliya wixii ka dambeeyey 1991. waa laga yaabaa dadku inay yidhaahiin maxamed siyaad ayuu daafacayaa, laakiin anuu daafacayn. ilaahay bulaanka lagu yidhaahday runta sheegaha buu yidhaahday oo yaani mataqaanaa inaad cadaalad samaysaan idinka fogeyn naceeb aada odagtahay naceebta waa aayada ulacmi. marka waxaa weeye maxamed siyaad hadduu wax fiican oo la taliyo wada heli lahaay wuu hagaagi kari lahaa. xukun-jaceelku iska meesheedaada dadka udeed bay ka dhexaysaa, mucangeg ma ahayn. waa laga dhaadhici karay wax taas. waxaa jirto maalin aan aada dadka isu wadaweyn maxamed siyaad oo asagoo waxyaabaha aadkood cirkaa la madayo isan gacaha faaniyo waa miyaad waalatay markaad u sheegto cuda laakiin waa naga xanaajiyeen madaxmayna gaarsiiyeen. ma wada ahayn nin mucangega, laakiin waa la taliyayaal xumaa. waxa weye dadku waa gafaya. maxamed siyaadna waxa weeye dee ninta oday soomaali mu ahay waa mataqaana aroontiisana wuxuu ahaa iskanimo ka soo bilaabay sidaa ku dallacay oday soomaaliyu ahay. waa la xumeeyey maahina jid ahaan ma xumayn, laakiin mugii dambe meel fogbay la gaartay. cabdi warsame isaaq waxa uu la soo shaqeeyey xukuumadda madaxweyne maxamed siyaad barre laga soo bilaabo 1969 markii uu talada qabtay maamulkaasi ilaa uu xukunka ka dhacay 1991. markii maamulkaasi xukunka laga tuurayna waxa uu cabdi warsame isaaq ku biiray kooxihii waddanka ku soo dagaalamay, waxaana uu qabaa inaan mas-uuliyadda burburka Soomaaliya dhammaanteed dhabarka loo saari karin madaxweyne maxamed siyaad barre. maya waxaas ma jiraan waxaas ma jiraan. haddeer waaad arkaysaa haddii oo dad soogalo wax u maaragtay noqonaya ay yihiin siyaad barre hadda waa tegay intaasana maaragtay la maraya hal meel ay isugu yimaadaan oo waxay ku hesheen oo ay fulaan lama arkin. marka waxa weeye siyaad barre iska hadalbay. dhinaca kalena madaxda ka tirsanay jabhadihii la soo dagaalamay xukuumadda madaxweyne maxamed siyaad barre mowqif aad u adag ayay ka qabaan shakhsiyaddii iyo xukunkii madaxweyne maxamed siyaad barre. cumar xasan gaalaguul waxa uu ka tirsanaa ururka USC. wuxuu ahay nin wakti dhib jiray dalka qabtay, militar ahay. militarkana aragtidiisa waa xadadan tahay. waa tan la yidhaahdo waa faras labada dhinacba aan u jeedin ee hortiisa kaliya arkaayo. markii dambena hadee waa nin marka uu xoog yeesho oo meel qabsado yani waxay noqonaysaa inuu wax la qabto ayaanta ugu horeyso oo bilaabayo wax alla waxay aadaanba oo yani nidaam ku sameeyo waxyaalaha sharci u dejiyo hore u qabto. laakiin markii uu dego asi yani uu nagaado dawladiisana ay nagaato wuxuu noqonayaa nin ismahdiyey. mowqifka ugu adag ee madaxda jabhaduhu ka istaageen maxamed siyaad barre waxa uu ahaa kan uu qabo ururka SNM oo colaadda ka dhacday dabayaaqadii 80-meeyadii gobollada waqooyi haatanna loo yaqaan Somaliland ay si weyn u saamaysay ururkaasi. maxamed xaashi cilmi waxa uu ka mid ahaa aasaasiyaashii ururka SNM. iminka haddaan ku soo qaado Somaliland, Hargeysa magaalo walba duleedkeeda waxa ku aasan xabaalo waxa jira muxuu ahaa xabaalo waaweyn oo dadkii lagu xasuuqay ay ku aasan yihiin. waa calaamad taala oo rag iyo dumar iyo carruur wax walba leh oo kolba daadku Hargeysa soo saaro. waad ogay inuu jasiiro waa tii inta la qaaday dadka lagu ururiyay muxuu ahaa lagu laayay jasiira. waa halkay ka bilaabantay baa halkaa ahayd. dabeetana maanta magaalo reer Somaliland oo aan intan muxuu ahaa xulafada la ahayd maahe aan mass graves ku aasnayn maanta ma jiro. kolka waxa weeyaan astaantaasaa meel walba u taalo raadkaasu ka tegay in siyaad barre. kolka waxa weeyaan ninkaasi wuxuu ahaa shaydaan ilaahay ummadda usoo diray buu ahaa. kolka astaantiisa iyo xumaantiisu wax alla waxaa maanta dhacay oo dhan dembigeeda isagaa muxuu waa sunnihii uu dhigay weeye. waxaa fikrad aan taas ka fogeyn qaba maxamed abshir waldo oo ka tirsanaan jiray ururka SSDF. wuxuu ahaa sarkaal dawlado gumaysigii la soo shaqaystay talyaani iyo ingiriisba. wuxuu ahaa nin muujiya inuu
isku kalsan yahay haddana ficilkiisa ayan ka muuqan inuu isku kalsan yahay. wuxuu ahaa nin jecel dadka inuu tuso inuu yahay leader Soomaaliya oo Afrikaana oo progressive horusooda ha yeeshee muxuu ahaa askari ku cadaaday siyaasadiisii iyo taariikhdiisiina miraheedii waxaa laga arki karaa halka Soomaaliya ay maanta ku sugan tahay. ma waxaad leedahay wax buu ku leeyahay waxa hadda taagan? kuma lahaad keliyahay waxa weeye aas-aaskii dugistii Soomaaliyeed maamulkiisii bay ka dhalatay. habxumada iyo dhaqan xumada iyo qabiilka iyo kala taga iyo kulli waxay raad ku leedahay oo aanu la dawoodi laanahay waxa weeye habkii uu wax u maamulay iyo taariikhdii uu nooga tegey iyo dhaqankii uu nooga tegey. rag uu ka mid yahay xasan cali mire oo ka tirsanaa ururka SSDF waxay qabaan inaan eedda loo wada saari karin madaxweyne maxamed siyaad barre balse ay tahay inay la qaybsadaan raggii talada la hayay waddankana la maamulayay. maxamed siyaad barre intii dad qabtay kama badna chance buu helay uu dadka xoog u qabsaday isagu ku qabsaday laakiin si darra haddii maxamed siyaad barre waayo aragnimo iyo aqoon midna dadka kama badin keligiis wax la eedeeyo maaha eedda keligii ma leh waa lala wadaaga dadkii la shaqeeyaa la wadaaga dadkii ma aragtay oo aan qaban warkadaasaatan oran maxaa yeele wuxuu gaarsiiyey meel uu isaga maaha nin kala hadli karin waddan maaha meelna laguma tago marka sideedaba qof keliya yaan la eedaynin inta kale oo waddanka joogta hal nin waa ka tashin karin laakiin dadkii baan talo si loo qabsadaba ma naqaan dadka siday talo aynu u qabsano garan ahaan ilaa hadeer ma aynan baran wadahadalka ma naqaan nin walba anoo reer hebel ka bilaabahaya wariyaa adigu reer hebel baa taa laleeyahay maba aha waddan baynu wadaagnaa iyo walaalaynu nahay iyo wardadweyneena la dhaafiye iyo waxaaba hadalku kuma jiro. maxamed faarax jimcaale waxa uu aaminsan yahay in sida xukunkiisa oo kale madaxweyne maxamed siyaad barre ay shakhsiyadiisu isugu jirtay wanaag iyo xumaan labadaba. wallahi waxaan isleeyahay waagaas waa kuu sheegayoo waxaa ii muuqday dictatorship nacab dictatorship baa igu jiray maskaxdayda ku jiray laakiin waxaa ii muuqday waxaan arkaa dhinacana nationalism weyn buu lahaa oo nin maaragtay isla weyn buu ahaayo Soomaali ah oo isla weyn oo iskala weyn wuxuu dhihi jiray warshadaha iyaga anagu aan la jabjabno oo la kufkufno oo qaladno oo wax naga xumaadeen intii aanu ajnabi keensan lahayn dhinaca positive buu ka ahaa dhinacana wuxuu ka ahaa inaan xukun jecel oo dictatora oo qofka aan aamini karin dadka maskaxda furan aan aamini karin hadda marka nooc isku jiro ah. jabhadda SNM waxay sanadkii 1991 ku dhawaaqday inay ka go'day dalka Soomaaliya intiisa kale inkastoo aysan weli helin ictiraaf caalami ah. dhinaca Puntlandna waxaa hogaamiyaashooda ay ku guuleysteen inay nabadda soo celiyaan maamul adagna samaystaan. haddaba dhulka Soomaaliya gaar ahaan koonfurta iyo bartamaha ayaa weli dhibaatadu ka taagan tahay iyadoo ay ku dhowdahay 20 sano tan iyo intii uu xilka ka degay madaxweyne maxamed siyaad barre deegaanadaasina ay weli degila yihiin. maxamed faarax jimcaale waxa uu isagu qabaa in madaxdii jabhaduhu ay wax badan qaban karayeen. waxa weeye markaan anigu jaanis haysto aan wax ka fiican haysto aan samayn karo oo aanan samayn anuu oranay maxamed siyaad baa cabshikeyga iyo wax aniga sameeyay masuulka anaa sameeyay oo weyn oo nin weyn oo jaanisna haystay dadna haystay shacbiyad haystay caqli lahaa wax wanaagsan la abuuri karay marka ninkii yiraahdo wixii asagu uu sameyn waayay maxamed siyaad masuulka masawir buu noqon hayaa. maxamed xaashi cilmi waxa uu isagu aaminsan yahay in qorshaha kooxaha koonfurta uu marka horeba qaldanaa. waxa weeyaan annagu waxaanu ka bilownay geedka hoostiisa iyo shirar noo gaara oon cidina lacag nagu siinin hudheel weynna aanaan ku jirin oo geedka hoostiisa arrimihii lagu dhamaysto kolkii aanu dalka soo gallay horta kolka hore waanu ka dimuqraadsanay oo 3 sanadood ama 2 sanadoodba madaxda waanu dooran jiray annagu mid qudhiinima haysan jirin kolkaana waxaa charterka ayaa ku qoraa 2 sanadood kolkaynu dalkii ku noqono markaynu hayno 2 sanadood aynu ku wareejino muxuu ahaa dadweynaha kolkaas saasa horta taasi waa meel aanu kaga duwanayn bay ahayd. ta labaad waxaanu kaga duwanayn oo kale waxaanu isugu yeedhnay wax alla wixii reer Somaliland qabaa'ilkii deganaa ayaanu isugu yeedhnay madaxdoodii salaadiintoodii
burcaanu shirkii ku qabanay halaysa saamaxa baa la yidhi halaysa saamaxay dawlad loo dhan yahay baa la sameeyey oo laga wada qayb galay dabeetana tii dambena booramaa lagu qabtay kolka horta anagu saasay ahay iyagu halkay ka bilaabayeen waxay ahayd ama qaahira lagu shiraya ama addisababa lagu shiraya ama waxa lagu shirayay muxuu ahaa meel dhul dibadda Nairobi kolka dabeetana hudheelo waaweyn iyaga loo barto kolkaaba waxa la geli jiray campaign-ka intaan shirka kalaba la dhamayn campaign-ka yaa madaxa noqonaya ayay ku tagi jireen meesha kolkaasaa shirarkoodu uma qabsoomi jirin guul lagama gaari jirin waayo hadii jeer waxaa ku jiray campaign madaxnimo oo dawladda mid doonayso oo Masar qaar doonayso oo Ethiopia qaar doonayso oo Talyaanigu qaar doonayaan qolada Mareykanku qaar doonayaan kolkaas wuxuu meesha la isugu tagi jiray waxay ahayd in meel campaign cusub lagu galayay ee meel aynu heshiino oo aynu dawlad dhisno oo Soomaaliya ha lagu soo celiyo sideedii fikradiiba ma jirin kolka hudheel weyn oo dalkana sanadkan halkee lagu shiraya ka dambaa la sii qorsheynaya muxuu kolka ilaa 11 waxay marayeen mooyaan ayay muxuu imkana dii wali ma badaynin kolka waxay ahayd goor walba wax dibadda laga soo dhiso dawladda ajnabiga ku lagu leeyihiin bay ahayd xasan cali mire waxa uu leeyahay qaladka ka sokow Soomaalida waxa ilaa maanta ka maqan bisayl siyaasadeed inagoo dhan baan bisayl lahayn bulsho ahaan baan Soomaali maanta ayaan u ahayn beriga iska daayay marka inaguna waxaan eeganaa reer hebel cudurka la yiraahdo ilaa uu ka baxo ilaa uu ka dhamaado Soomaalida ilaahay ka hanuunsho anigu ma qabo inay dawlad dhisan karayaan maxaa jira nin kala fincilaya dadkii wadanka lahaa inagoo la isku keendaray baa waxa la isku qabtaa 7 milyan ba ama 10 milyan ba dunida intay la egtahay dadka bani aadanka oo nool oo shaqaysanaya intay tira la egyihiin fiir waxa inaga isu kaaya muujiyay oo odayo aan runtii taariikhna qoran lagu aqoonay afkaas wax laga bartay anigu waa yaabanahay shacbigan maxuu la wareersan yahay madax iyo aqoonyahan iyo jini walba aqoonyahanku dadku kamid yahay bani aadan weey qabiilka cidi kagama badna iyaga laftooda marka ummad sidaas ku tashatay ama caqligeedii dhaafi waayey waa yeel iyo aqoonyahan iyo mid kasta meel la gaari mayso waa ayaan daro weey meel lagu gaari maayo in indhaha inta la furo dadku la furo loo dadaalo maalin walba laga hadlo waxa runta ah Israel waa nimankii kaliya isku dayay markay kursi heleen bay iyagina ka baxeen waxay intii waagi joogtay madaxda noqotay fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkan ha iloobin inaad subscribe aad tiraahdo haddii se aad tahay macmiil soo noqday ha iloobin in aad gambaleelka aad furato si aad ula socoto waxyaabaha aanu soo gelino channelkan haddii aad u